agaasimihi hore hay'adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka NISA Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalulshe ayaa si kulul ugu jawaabay hadal maanta ka soo yeeray wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi. Wasiir Fiqi ayaa hore u sheegay in qaar ka mid ah mucaaradka ay doonayaan in dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho ay galaan xaalad amni darro balse dowladda federaalka Soomaaliya ay u muujisay dulqaad iyo sidoo kale naxariis siyaasadeed. Sanbalulshe oo arrintaasi ka falceliyay ayaa sheegay in hadalka wasiirka uu yahay mid lagu cabsi gelinayo mucaaradka isagoo ku adkaystay in mucaaradku aysan ka baqinin dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa uu sidoo kale tilmaamay in loo baahan yahay in si mas'uuliyad leh loo hadlo si aan loo sii hurin xiisadaha siyaasadeed ee dalka. War qoraal oo ku qoray bartiisa Facebook agaasimihi hore NISA Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalulshe ayuu waxa uu ku bilaabay cabsi ma jibiso dad hore u bartay adkaysi. Hadalka ay ka muuqato fulaynimadu ee Axmed Macalin Fiqi oo ah in la dilo aniga madaxda kale iyo duubabkii dhaqanka ee nagula weeraray xaafadda Barmuudo 3 iyo 4 bisha Juun si noola qaarijiyo balse uu ku tilmaamay in ay naxariis tahay in aan wali noolnahay oo ay ahayd in la dilo. Hadalka wasiirka gaashaandhigga xukuumadda xilgaarsiinta waxa uu cadeyn u yahay in Xasan Sheikh iyo kooxdiisa ay baneysteen dhiigeena si ay noo cabsi geliyaan oo ay xukunka sharci darro ku sii joogaan. Marnaba nagulama cabsi gelin karo waxaanu hore u soo marnay oo ugu adkaanay rajiimyo ka adakan. Qofka bartay sida loo dhinto wuxuu iloobay sida adoon loo noqdo. Qoraalkiisa ayuu wuxuu mar kale ku soo gabagabeeyay cabsi ma jibiso dad hore u bartay adkaysiga. Hadalka agaasimihi hore hay'adda nabad-sugidda qaranka ee NISA Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalulshe ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya munaasabad uga qayb galayay magaalada Beledweyne taas oo loogu dabaaldegayay xuska markii ay xornimada qaadatay dalka aan walaalanahay Djibouti halkaas ka sheegay ama mucaaradka eedeyn culus u jeeday isagoona sheegay in mucaaradka ay dowladda federaalka Soomaaliya ay u naxariistay sidoo kalena ay naxariis tahay haddii ay wali nool yihiin taasoo si weyn looga falceliyay saacadii la soo dhaafay iyadana siyaasiyiin dhowr ay ka hadleen. Xilli Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalulshe oo dhawaan wareysi bixiyay waxa uu sheegay in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu go'aan ku gaaray in la dilo dagaalkii ka dhacay magaalada Muqdisho 3 ilaa 4 bisha Juun ee sanadkan 2026 taasoo si weyn dadka Soomaaliyeed ay ugu falceliyeen saacadii la soo dhaafay iyadoona hadalka Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalulshe soo aadayso xilli lagu jiro maalmaha xorriyadda.